Ku soo dhowaada SNTV. Faalada caawa waxaa idiin daadihinayo aniga oo ah Sacdiyo Bajaaj. Waxaana diirada ku saari doonaa baarlamaanka federaalka oo shir maalmeedkiisii ama kalfadhigiisii u rartay caasimadda Kigali, waddanka Rwanda. Qof walba oo muwaadin ah waxa uu la fajacsan yahay dowladdan diyaaradaha saaran ee aan waxqabadkeedana muuqan ee ku dhisan isbarbaryaaca. Baarlamankan aan dalkiisa ahayn ee kulamada ku qabsanayo qarashka ku baxayana uusan yareen sida hoteeladii, cunadii iyo diyaaradihii. Maxaa loo yiri Soomaaliya macaluul baan iyo la dagaalan argagixiso ayaa ka jirta? Mise waxaa laga watay qorshe lagu jeeb baaranayo beesha caalamka? Meesha madaxweynihii, xildhibaanadii iyo wasiiradii wada noqdeen shaqo-tag iyo qaraabasho maxaad ka filan kartaa kuwa amnigaada loo xilsaaray? Sida aan wada ognahay magaalada Muqdisho, amnigeeda waa uu sii xumaanayaa marba marka ka dambeysa. Madaxweynaha dowladda federaal Soomaaliya haddii la yiraahdo 2 islaamood ayaa ku shiraya meel hebla, diyaarad ayuu ku boodayaa sida aynu aragnay. Ilaa intii la doortay waa yar tahay intuu ku sugnaa Soomaaliya gudaheeda. Soomaaliya waxay ku jirtaa dagaal. Madaxweynuhu waa ammaanduulaha ciidamada. Waxa uuna iclaamiyey dagaal. Haddii ciidanka ammaanduule uusan lahayn, waxaa ka adkaada cadowga uu hogaaminayo ammaanduulahooda. Soomaaliya sidaani ma ka dhabbaa? Soomaali hogaamiyo weydaye ma hog bay ku socotaa. Allow sahal amuraha.